kusoo dhawo Fan Academy taawo calaamada subscribe-ka kadibna furo gambaleelka taana waxay ku saaraysaa cashar kastoo aynu soo dhigno inuu kuu soo dhaco isla waqtiga aynu soo dhigno waad mahadsan tahay bismillaahi raxmaani raxiim darsigeena waxaynu ku baran doonaa sida new gmail account loo samaysto account cusub oo gmail ah muxuu naga caawinayaa gmail kow wuxuu naga caawinayaa inaynu samaysano youtube account labo wuxuu naga caawinayaa inaynu wax kala soo degno play store-ka applicationadiisa saddex inaan u isticmaalno baahideena gaarka ah haddaba aynu baranno sida loo sameeyo gmail account daawasho wacan marka hore waxaad tegaysaa google-ka waxaad ku qoraysaa gmail sign up markaad qortid si toos ah wuxuu ku geynayaa halkan waxaad ku dhufanaysaa qaybta u korayso ee gmail create your google account ee ku qoran tahay halkaas klik ku sii marka halkaas soo furtid wuxuu ku keenayaa formkan markaad imaadid halkan name-ka ku qor magaca adiga aad doonaysid ama midkaaga saxda ah ama mid gaar ku ah haddii aadan doonaynin markii comment-yada aad bixinaysid youtube-da kale aan loo arkin magacaaga saxda ah waxaad doonaysid ku qoro ama ku qoro magacaaga saddexan oo saxda ah kadib dooro username waxaad dooranaysaa username waa magaca aad ku geli lahayd account-kaaga ku qoro username-ka aad doonaysid muhiim ma aha haddii aad doonaysid inaad samaysid youtube iyo username-kaaga inay isku magac ahaadaan youtube-ka magacaad doontid ayaa loo bixi kartaa xilligaad doontidna aad bedeli kartaa username gaar ah u samayso ha isku ekaysiinin youtube-kaaga magaciisa iyo username-kaaga waa aniga ra'yigayga iyo taladeeda waxaan qorayaa username-ka markaan qoro username-ka haddii username-ka hore loo qaatay wuxuu leeyahay username is taken haddii aan la qaadanna faraha ayuu ka qaadayaa waa kana wuxuu yidhi that username is taken try another waa la qaatay mid kale isku day waan bedelayaa ama username-ka magaca wax ka bedelaya ama tirada aan raaciyay ayaa wax ka bedela laba midkood markaan bedelo aynu aragno hadda waa ka wuxuu leeyahay mar labaad waa la qaatay isku day weli inaad bedeshid username-ka wax ka bedeshid aan isku dayo haddana markan wuu ogolaaday kadibna halkan ayaa imaanaya waxaan dooranayaa passwordkayga waa inuu noqdaa ugu yaraan 8 xaraf markaan ka dhigo 8 xaraf wuxuu leeyahay strong passwordkayga awood ayuu leeyahay haddana confirm your password imo isla passwordkii aad gelisay ku celi kadib halkan imo birthday-ga dhalashada geli maalin iyo bil iyo sanad aadan ilooweynin oo aad xasuusanaysid haddii aad rabtid inaad ka dhigatid gmail-kan mid aad u isticmaashay youtube-ka fadlan ka dhig da' ka weyn 18 sano 18 sano da'da ha ka weynaato aniga waxaan geliyay 1 January 1990 taas ayaa muhiim ah sababtoo ah youtube-ka ma ogolo in lacag ka sameeyaan qof ka yar 18 sano sidaa awgeed 18 sano da'daada ku aadi kadib genderka imo male ama female haddaa tahay qof dumar ah female-ka dooro haddaa tahay ragna male dooro kadibna imo meesha mobile phone ku qoran tahay waddanka aad joogtid dooro ama asaa kusoo saaraya waddanka aad joogtid hadduusan kusoo saarinne adiga dooro meesha calan ku dhufo waddanka aad joogtid dooro kadibna geli mobile-ka aad gacanta ku haysatid lambarkiisa ha gelinin lambarka fog si aad u heshid code-ka lagu xaqiijinayo account-kaaga kadibna geli numberka geli
markaad geliso lambarka hoos tag and your current email address haddaa email address hore u lahayd email addresskaas geli haddaadan lahaynna ka gudub waa optional waajib ma aha laakiin way fiican tahay inaad gelisid hoos u soco next step dheh kadibna meeshaan buluugta ku dhufo what ilaa iyo aad ka aragtid I agree kadibna I agree ku dhufo passwordkaa save gareyso wuxuu kusoo saarayaa verifying your account waa in la xaqiijiyaa akoonkaaga text ma dooranaysaa oo akoodhka waxaa lagu soo dirayaa message ahaan mise waa lagu soo wacayaa midii ku fudud dooro text ayaan doortay kadib waxaa leeyahay continue waxaan sugayaa code ka imaanaya xagga iyo google-ka haddii in case oo kusoo dhici waayo try again ayaa leedahay mar labaad ayaad ku celinaysaa haddii message kusoo dhici waayo waxaad dooranaysaa voice call continue ayaa leedahay haddii uu kaa diido waxaa weeyaan messageka markaad waxaad dooranaysaa voiceka cod ahaan ayuu kuu soo wacayaa waa kan waxaa kusoo wacayo number ay ku qoran tahay google kadibna waad qabanaysaa markaad qabatid dhegeyso kadibna wuxuu ku yeerinayaa lambarka ama koodhka aad gelinaysid halkan waxaa ku qoran enter verification hadda wuxuu wadaa inuu ii sheego koodhka 284316 mar labaadna kugu celinayaa si kuu saxo markii aan geliyo koodhka la ii soo diray ama fariin ahaanta ama codka wicitaanka ah kadib waxaan leeyahay continue kadib waxaa sii leeyahay welcome ayuu leeyahay continue ayaan leeyahay ilaa iga geeyo inboxkayga markuu ku geeyo halkan waxaad ku dhufanaysaa bashqadaas gaduudan bashqada markaa ku dhufatid wuxuu si toos ah kugu xidhayaa maxaa la dhihi jiray inboxkaaga waad ujeedaan hadda uu loading gareynayaa wuxuu si toos ii geynayaa maxaa la dhihi jiray inboxkayga kadibna waxaad leedahay next ilaa xariiqintan ay ka dhamaystirnato next leh kadib markaan ku geenayaa wuxuu kusoo saarayaa gmailkaaga usernamekiisa wuxuu ku leeyahay waa ready inaad isticmaasho waa diyaar kadib waxaad leedahay go to gmail waa kana inboxkaagii haatan waxaad yeelatay gmail darsigeena xiga waxaan ku baran doonaa sida youtube account loo samaysto asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh